magaalada Nairobi-na nin Soomaali ah ayaa ku xaniman dhakhtar ku yaala magaalada Nairobi oo loo haysto lacag lagu daweeyay oo cadadkeedu gaadhayo $90,000 isla markaana loo diiday inuu dibadda u soo baxo ilaa uu lacagahaasi bixinayo. warkaasi waxa inoo haya wariyaheena Maxamed Baashe Khaliif. Soomaalida iyo muslimiinta ku soo arkay isbitaalka Aga Khan waxay ahayd waxaan xadin leh Yusuf waa nin Soomaaliya kuna noolaa deegaanka Bangal ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya. waxa ku soo booday xanuun culus waxaana maskaxda kaga furmay dhiig. gaarisa waxa looga qaban waayay waxaana loo soo gudbiyay Nairobi. waxa muddo 3 bilood lagu dabiibayaa isbitaalka Aga Khan ee Nairobi. waa qoys danyara 9 milyan oo lacagta Kenya una dhiganta $90,000 ayaa isbitaalka Aga Khan u haysta. waxa uu ugu xaniman yahay isbitaalka in lacagtaasi la bixiyo. waxaana habeen kasta laga rabaa $300. dhaqaatiirta ayaa wali la tacaalaysa isagoo xanuunsan. TV-ga RTN ayaa booqday isbitaalka uu yaalo walow uu ku jiro qolka baxnaanada. waxa la socda xaaskiisa iyo inan yar oo dhalay oo habeenkii seexda banaanka isbitaalka. maamulka Aga Khan isbitaal ayaa u sheegay in loo baahan yahay in lacagtaasi si degdeg ah loo bixiyo haddii kala bukaanka ay u haysanayaan lacagtooda. xaaska Yusuf oo isbitaalka aan ku booqanay ayaa ka dalbatay ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan oo caawiyaan saygeeda si looga saaro isbitaalka uu ku xaniban yahay. ani magacayga waxaa la yiraahdaa Fartuun Cabdi Saleebaan ama Soomaaliyeed oo muslimada ayaan ahay. waxaan ku noolahay deegaanka Tana-River County la dhaho meel Bangal la yiraahdo Gaarisa u dhow ayaan ku noolahay. qof reer miyo iska xamaalataan ahay reer miyo xoolaha haysatana maahi. odaygaygan oo oday iska xamaalan jiro asagana ilmihiisa u xamaalan jiro ku xoogsata ku noolka iska ahaa. oday maalmaha ka mid ah marka waxaa dhacday odaygii in sara jooga uu ka dhacay oo qaflad suuqa dhexdiisa soo ilmihiisa u xamaalanaya uu ku dhacay. dabadeetana muslimka iyo walaalkii meesha jooga ayaa u gurmaday oo dhakhtar Gaarisa ula cararay. dhakhtarka Gaarisa 2 wiig ayaan ku jiray. dib dambe waxay yiraahdeen anaga waxba kama qaban karno ninkaas si degdeg ah waa in dhakhtar Nairobi loola cararaa. ilmaheygana waa 11 cunug oo ilmo yar oo isu baqada ee waxa haystaan malaha. marka meeshii baa ambulance Soomaalida iyo dadka muslimiinta meesha jooga ayaa lacag noo aruuriyay lacag 30 kun ambulance 15 kun naga qaadatay. anaga 15 kale iyo biicabkii wixii ka dhiga siday noo soo wadaameen baa Nairobi soo galay maqriba. ma naqaano isbitaalkan Aga Khan markii dambe la sheegay in la yiraahdo ayaana la dhigay ambulance way naga laabatay. odaygan xaaladiisa critical ayuu ahaa. markiiba gurmad ayay ku sameeyeen ayagoo waxba weydiinin odayga qalitaan bay si degdeg u geeyeen. dib dambe qalitaankii way ku guuleysteen laakiin ninkii hal bil ayuu ICU yaalay. dabadeetana ICU-gi way ka saareen. HDU way keeneen maskaxda ayaa laga qalay oo dhiig u fariistay. HDU-gi waa laga soo saaray. hadda wardka ayuu joogaa. hadda 3 wiig intii dhanna waxayna dhahay waa baxaysaa oday waa la bixinayaa lacagtii waa inaad soo shubtaan. lacagtii markaa weydiinay waxayna yiraahdeen waa lacag 9 milyan oo Kenya ah oo u dhigata $90,000. anagana ninka dadkiisa nin Soomaali waaye taa reer miyo xoolaha haysta ma aha. dadka xoogooda ku nool tuulo iskaga nool ma iska korsadaan ahayn. hadda iyo dan meeshaas ayaa ku xayiranahay. odaygiina waxaa la yiri lama bixinayo waa ilaa lacagta la bixiyaa. sidaas ay tahay lacagta bil habeen walba way ku sii darsanaysaa way ku sii socotaa. marka waxaa la walaalay muslimiinta dan iyo dibad waxay joogaan in la ii gurmado la caawiyo sidii meesha gacan bini'aadan ayaa ku jira gacan Ilaahay baa ku jira inuu Ilaahay gacan bini'aadan iga saaro. Soomaalida iyo muslimiinta kulli waxaa ka codsanayaa inay i kaalmeeyaan odayga meesha la iga saaro. waxaan haysta malaha ilmahayga hadda waa 11 iyo hooyadaya waayeela tuuladii baan uga imid. muslimiinta ayaa wax u aruurisaa ayaa wax siisaa. marka walaalay Soomaalida muslimiinta gabar Soomaali oo muslimada ayaan ahay inay gurmataan ayaa idinka codsanaya. wa alaykum salaam wa billahi tawfiiq.